halkaan naga daawanaysaan waa talooyinka shacabka Soomaaliyeed ku soo dhawaada meel kastoo adduunka aad ku nooshihiin. Maanta waxaan idinla rabaa wax badan inaan idinla wadaago oo ma arkino dhibaato dalkeena iyo dadkeena ku ah. Baaqaan rabaa inaan u diro hoggaanka hadda dalka hayo. Baaqaas wuxuu yahay inay dhageystaan aqoon-yahanada Soomaaliyeed, baarlamaanka Soomaaliyeed, isteediyada Soomaaliyeed. Maadaama uu dalkeena uu federaal uu yahay, markaasna aan hadalladan iyo gacan bidixintan aan wada ruugno qaabka ay u dhadhamaysana markaas go'aan masiiriya oo la dhirindhiriyay oo la ruugay oo markaas tafatiran laga soo saaro. Markaasna tartiib loogu yeeraa lamada danjiro ee labadaas dal ka soo yeerto ee ka joogta dalkeena. Markaasna iyakana la dhageysto. Marka ku xigtana go'aankan ku heshii oo ma arkino oo dalkeena masiirka uu qaatay oo lagama naqdaana haddii ay ku guuleystaan inay waddanka markaas ay sii joogaan ay joogaan. Haddii ay ku guul dareystaan interview-aasni waddamadooda si nabada loogu celiyo. Waxaan sabab u diri lahay dadka Soomaaliyeed heer aaranahayaan waa familia. dalka Soomaaliyana siyaasad islama wadaagi karaan. Waa aniga sida aan qabo shakhsi ahaan. Ganacsatada Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan baaq u diro. Maanta haddii dalkaada la sumcad dareeyo, ganacsigaada iyo horumarkaadana dhib bahdilaad ayaa ku soo socoto. Ganacsatada saas baaqas ayaan u diri lahay. Waddankan aan diriska nahay ee Itoobiya waxaan isla nahay hortii Afrikaan. Waxaan nahay diris. Waxaan u baaqi lahay inaan kala xishoono. Waxaa idinka nooga baahnaynin idinkagama baahnin. Ayakana baaqas ayaan u diri lahay. Waxaan baaqala u diri lahay hoggaanka dalkaynu iyo baarlamaankaynu inay sharciga Soomaaliga ay markaas ay sida ugu dhaqsiyaha badan ay u dhamaystiraan. Baaqa kale waxaan u dirayaa dhalinyarada Soomaaliyeed inay ciidanka dalkeena Soomaaliya inay si fiican ay u qortaan oo dawladda agama jeedo waxyaabo kale. Dawladda Soomaaliya madaxweyne Farmaajo iyo Khayr uu ra'iisul wasaaraha ka yahay ciidankaas inay qortaan. Ayakana faa'iido ugu jirto dalkeenana faa'iido ugu jirto. Markaasna taas waxaa looga gol leeyahay in la xakameeyo amniga. Dekadahan aad u jeediin waxay ku filan yihiin dalkoo dhan. Ayada oo kale oo seef la sii leeyahay dhaqaalaha kale oo dalka uu leeyahay. Waxaad imaan doonto haddii taas ay Soomaali hesho waxaa imaanayso in aan badhahnaba dadkii oo hadda waa aragteen Kenya Ethiopia ma arkino la tare axadna la leh. Djibouti-na waa dawlad Soomaaliyeed. Aqoon-yahanada Soomaaliyeed iyo aqoonsiga Djibouti la aqoonsayna wuxuu ku saleysnay waa ogna. Ninkii taariikhda wax ka fiil taas ayaan xadka Djibouti aga xiray. Marka dadkaasoo dhan waa dad diris aan nahay. Dadkaasoo dhan dad Afrikaan ayaan isla nahay. Cadowga inaan iska xigsana la rabaa. Mahana ayaga inay burbur ay u keenaan wadamadan ma ahan amba gobolka. Ku ayakana baaqas ayaan u diri lahay. Laakiin waxaa la yiri magac maalin ku raaco maalmo kaama helo. Tan inay si fiican loo ruugo ayaan qabaa lagana soo saaro baaq kuleelka ay soo saareen in la eg oo kuleel ah. Dadka heer Somaliland aad ayaan u jeclahay. Waxaanan isku haynaa qadiyad saan ayay ku fiican tahay iyo saan ay ku fiican tahay ayaan isku haynaa. Waana heshii doonaa.
dalkana waxaa la yidhaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya cid kale oo ka mas'uul ina ma jiri karto tan haddaan ku heshiino Jabuuti ba madax banaani ayaa loo ogolaaday yaa iga jecel maanta waa jeclahay dalkiigo kala waa Soomaaliland saas ayaan u jeclaa doonaa biri ka maalin haddii ay jamhuuriyaddii Soomaaliya ay ka mid noqdaan sidaas ayaan u jeclaa doonaa haddii ay ka go'aan saas ayaan u jeclaa doonaa maadaama uu dhul Soomaaliyeed iyo dad Soomaaliyeed uu yahay intaas ayaan idinla wadaagi lahay waxaan u dirayaa baaq gaaban suxufiyiinta Soomaaliyeed inay si fiican oo laga fikiri inay u dhiriyaan dhibaatada hadda jirto. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.